إيمانك شيء قرا لقو قبائن الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة يقول كيف فردوسية شنو قرصا وليجيه قانقار هدي آتيهين قيرا لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قرسك إلاشا قرآنك يسنها الله يسكول ريان لك لقادن قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسيرك واللقو قيافر قلوبتينا قياما حقي ساد أوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سورة الفاتحة تفسير كذا المرينا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما هذه الله بارك رب العالمين. عالمين تؤدم يسقوا ربي جوا هاي اسكلها. الرحمن نحريستي سعام كهيده عد ولا الدنيا دن شوكتبا جارسية. الرحيم نحريستي سجار كهيد نحريستي سإلهي كجونية لي مالنت قيامها هي آخرة أوليدي سيدت كي سجر رمي. مالك يوم الدين مالنت قيامها هو إله إسقو إسكله وحول بإسكله. إياك نعبد إله يوم كل جابا نكعابدينا وإياك نستعين كل جابا نجرجار كادونينا. اهدنا الصراط اهدنا إلهي ونجوها جاتي أو نجوها نوني ونجو توسي الصراط والضدي أما تشتكي المستقيمة توصنع صراط الذين إلهي وكوي تشتكو ذا نجوها جاتي ونجوها نوني أنعمت عليهم أضبر واقيسي خيرك إيه برارها إيه برواقضة أتسيسي مركات دم مؤمنين تيا غير المغضوب عليهم كوي لو عروضين آنا هين ولا الضالين كوي هلابين آنا هين. سورة معنى هذا مركز الله ساقوا واسداس ويه وحيكون بلابنتي سورة مهد إلهي سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. waxay ka mid tahay shanta suuradood ee quraanka kariimka ah ku bilaabma erayga alxamdulillah. suuradan imika aynu marayna suuratul faatiha, suuratul an'aam, suuratul saba, suuratul faatir iyo waxaan dhaafay suuratul kahf. shanta suuradood xamdigu ashaa ku jirta alxamd waxay leeyihiin culimadu waa lil istiqraaq. وحويان waxay sheegaysaa ama u taagan tahay macnaha ay sheegayso erayga kullu oo kale. kullu alhamdulillah. ilaahay oo mahad oo dhan adiga leh. mahad hore iyo mid dambe iyo mid adoomaha adiga ay ku mahadiyaan iyo tadhexdooda ay ismahadiyaan wax oo dhan adaa leh. garanayba ilaahay si toos marka loo mahadiyo dadku haday ismahadiyaana sidee buu ilaahay mahadooda ku yeelanaya? de wuxuu ku yeelanayaa qofka la mahadiyay ee wanaaga laga sheegtay yaa wanaajiyay ilaahay baa wanaajiyay. ka ilaahay baa ku amaana subhanahu wa ta'ala. marka waxa la yiraahdaa lil istiqraaq. هذه اللفظة دالة على الاستغراق. حمدك إسقاهي وحمد كامل من جميع الوجوه لنعيض أردن. ما هذا أبو إلهي اللي هدو داق كسيانا مهد بولي هدو ديب كبر هذا مهد أي كل إلهي سبحانه وتعالى. وحفصر يا النبي عليه الصلاة والسلام هدي جيسي مركو إلهي كهلا سبحانه وتعالى وحوناك وحورنشري الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلهي بقى مهد إلهي وحول بقى نعمديس أي كل ما يستر مين مركو دي برسولك سوق قاعدنا وحورنشري الحمد لله على كل حال. إلهي بقى مهد استقع اسكال حالد والبا waxaan jecelahay bay soo gaareen oo dhibaha igu dhacay mahad buu leeyahay. alxamdulillah rabbil alamin. alxamdulillah waxay sheegaysaa uluhiyada ilaahay inuu isagu yahay ka cibaado iyo mahad iyo xamd yeesho. rabbil alamin waxay sheegaysaa rububiyada ilaahay inuu yahay rabbiga isagu cid walba uu abuuray. idan halka waxa ka muuqanaya naftiisa ilaahay wuxuu ku sifeeyay uluhiyya qabla rububiyya. taasina waa tay u taagnaayeen rusushoo dhan
waxa in badan dadku ay diidanayeen cibaadada ilaahay markaasaa rususha lagu soo diri jiray dadka inay ogolaysiiyaan cibaadada in badan oo kamid rabbinimada ilaahay waa ay ogolaayeen marka muhiimadda ay sii leedahay cibaadada alla in lagu khaas yeelo ilaahay u horeysiiyay saayno arkay rabbul caalamiin caalamiin too dhan buu rabbi u yahay erayga rabbi macnaha uu sheegayaa waxa weeye uu abuuray waanu leeyahay waanu maamulaa waanu arsaaqaa intaa cid noqon kartaa ma jirto ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala caalamiintu waxa weeye ciddii isaga ka soo hadhay oo dhan fircoon markuu nebi muuse ku yidhi rabbulcaalamiinku muxuu ahaa ayaa wuxuu ihi rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahuma ilaaha abuuray weeye cirka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysaba ee iska leh marka caalamiintoo dhan caalamka sare iyo caalamka hoose iyo meel walba ilaahay baa abuuray isagu iska leh subxaana wa tacaala waa cumuumu rububiyaة اllaahi tacaala lijamiici اlcaalam marka la eego suuraddu towxiidka saddexdiisa qayboodba way tilmaamaysaa rububiyadii ilaahay inuu yahay isagu rabbiga caalamka way sheegtay rabbulcaalamiin uluuhiyadii ilaahay iyo inuu ilaahay cibaado xaq u yeeshay bay tilmaamaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alasmaa wasifaat towxiid alasmaa wasifaat inuu ilaahay leeyahay sifooyin waa wanaagsan iyo magacyo waa wanaagsan bay sheegaysaa alraxmaan الraxiim maaliki yowm اddiin waxaa ku sii xiga markaas الرaحmaan الرaحيim labadaa waصfi ama labadaa tilmaamood ilaahay baa iskale subxaanaه wa taعaalى oo halkaa horun bay sii fasirayaanay raacayaanoo rabb الcaalamiin markii ilaahay uu soo xusay baa qofku wuxuu isweydiinaya talow rabbinimadaas ma waxa weeyaan rububiye intiqaam iyo ciqaab iyo cadaab iyo dhib uu ku jiro maya jawaabtu waxa weeyaan waa rububiya naxariis wadata الرaحmaan الرaحيim ilahay naxariistiisaa ballaadhan oo badan subxaana wa tacaala nawcu hadi rububiya rabbinimadaa ilaahay nooca ay tahay ayaa rabbi uu ku jawaabay الرaحmaan الرaحيim macnihii hore way leedahay oo gaal iyo islaam ba ilaahay nicmadiisa uu siiya adduunyada oo adiga arkaya ay isugu naxariisanaya naxariistiisa daraaddeed isagaana fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu ilaahay wuxuu leeyahay naxariistiisa boqol buu qaybiyey 99 jannaday ku dambeeyaan hal mid buu adduunkan keenay khalqigoo dhamina taasuu isugu naxariisanaya bal waxaa naxariista dunyadan taala ee xataa xayawaanka ee wax cuna ee sabca la yidhaahda wax ugaadhsada oo ilmihiisa yar ugu naxariisto naxariista taasaa ka mid eh bal naxariista intaa la eg baa ayaa mid ka midaba adduunka la keenay maxaad u malayn 99 aad u weyn weyn naxariista ilaahay qof guul darro badan baana naxariista ilaahay ka qada ilaahayna addoomaha wuxuu doonayaa inuu naxariisto oo uu badbaadiyo walaa yahliku cala allahi ilaa haalik mid isagu naxariista ilaahay iska diida mooyaan الرaحmaan الرaحيim raxiimna markaa waxa weeye nicmadii aakhiro dee awliyadiisu siinaya ee dadka ashahaatee isaga rumeeya adduunka iimaan kaga tegey siduu aayadda ku caddeeyey wa kaana bilmu'miniina raxiima mu'miniintu buu naxariisanaya ilaahay subxaana wa tacaala culimada qayb ka midii waxay ku fasiraan الرaحmaan almunacim bijalaa'il الnicam waa ilaaha bixiyo nicmooyinka waaweyn والraxiim almunacimu bidaqaa'iq الnicam waa ilaaha bixiyo nicmooyinka qarsoon ee yaryar markaa nicmada waaweyn iyo tayar maxay kala tahay nicmooyinka qaarkood dadka waa u muuqdaan inaad xoolo yeelato inaad dad yeelato inaad caafimaad leedahay waxaasoo dhan waxyaabo dadka u muuqdo wey nicmooyinka yaryarina waxa weeye nicmada uu qofku garto markuu waayo waxaa jira nicmooyin badan oo inta hore aanad fahamsanaynba inay nicmo tahayba laakiin markaad weydo un baad oranaysa taasina waxaana miyaan haystay mabaan ogeynbe waanay badan yihin nicmooyinkaas iyaaka nacbud maaliki yowm اddiin
مالك يوم الدين إلهي با مالك قيامها مالك هو إساقو إسكاله وميانا الدنيا دينا لهاي ما يوحى الله وحا الدنيا يا لنا دادي الدنيا يا عالم كورنا إساقا إسكاله نحا هذا مالك يوم الدين مالك قيامها إلهي وقونية للهانشاه لماذا وحي إليه وحا هريا sheegashooyinkii adduunyadan ka jiray adduunkan dad badan oo wuxuun iska sheegtaa jiray waa xoolahaygii waa daarahaygii waa waddankaygii lahaanshihii noocaas ahaa ee dadku ay sheegan jireen wax ayaa iska hadhay maalinta qiyaamahana ilaahay taa uu sii caddaynayaaoo wax alla wixii wuxuun sheegi jiray lahaa anaa leh su-aal baa la weydiinaya liman ilmulku lyowm maanta yaa wax leh jawaabtu maxay noqotay لله الواحد القهار إلهي با كليغي وحسكله كعيد كلمه جواب ويدو إلهي با يسو جوابي عيد كلا wax leeba ma jirtaba maalinta mid walo malik iyo malik iyo sheegan jiray halkaas ku haray oo iska aamus labada qiraba way jiraan malik yawmiddin iyo malik labadaba waa jiraan marka waxa jira malik aan malik hayn iyo malik aan malik hayn labadaba ilaahay uu yahay subhanahu wa ta'ala malikna uu yahay malikna uu ملك باجرة بقرة أو حوالها هين إنك سيسكبا يرتهايبا وكي وحي شابه هذه أشار وحون حور تيستو هدو ملك بيها إنت بضان لكن وشري كران ملك آن مالك هين وحوالها هين وحسن له بدن هاي إن تدكو أيهين دد مالكين وحله لكن آن ملك هين وبقرني ولا هين لبدا بي الهي والله سبحانه وتعالى سقا بقرنا وحنا له waxay aayaddu muujinaysaa ithbaatu sifati albacthi waljazaa in aakhira jirto oo iman doonto in kastoo in badan iska dhaga tiraan dadkan adduunyada ku nool abaalmarino dambayso mudan in la xusuusto loo diyaar garoobo oo siday qaybkii hore iyo ummadaha hore uga warrantay aakhirana way ka warramaysa adduunka waxa joogana way ka warramaysa xaqu ilaahay leeyna way ka warramaysa suuraddu marka waxa mudan in loo camal falo إياك نعبد وإياك نستعين وحيث الماميان لبدا جملة استبيالا إن أدونك إلهي كليجي وعابده كليجينا جرجار ويدي سنة عيد جرجار لو ويديستو أما اللي عابدنا وحوم مضان صفوين كون أكسن إله الله سبحانه وتعالى إله وحول بيسكله هي عبادة حقوياش يسجانا قرؤ لإن ده مرتين الله نقضاه وحلا وحي وأدونك عصنا يبقى يسجا وقدمه waxaa markaa aayaddu ay cadaysay labadan arrimoodba inay yihiin laba arrimood oo ilaahay ku gooniya cibaadada iyo isticaanada alcibaada xaqu lillahi tacaala waxaana laga fahmayaa taa shayga loo yaqaano xasriga ama qasriga taqdiimu lmacmuuli cala alcaamil waxyaabaha luqadii aynu sheegayna kuu faa'iideynayso wey luqada carabiga hadday tahay naxwada iyo balaaqada iyo ومواضيع ذيك ورما هذه الشيء قال إلى هذا القصر والحصر الإضافي والنسبي قيسي كلا دوانا مركب ما دام أرى جدا بين لها إياك الله بدل ما يلود بو حق هرم مري معناها لقى فهم يا وحوية كلجا بانك عابدين كلجا أنا جرجار بانك ويدي سنين سدا صانع تهايو أنت أسود دليل بينه شيء عبادين ولا هاي كلجي لين وحقوق ذا عد ولا بحق بالله إلهي حق كلي ولا إن إلهي كلي العابد استحديث معاذ كسر لا تدري ما حق الله على العباد حق إلهي ضماه وكل يوم تقارنا وين كلي عابدان استعانة دي نواصا سوكر إلهي كلي جبا جرجار لو يدي سنة هدي المركز تاهر جرنا يودع عبادة ده لكن قفك ويراده meelaha qaar ka sawtay ku soo aroortay in cid kale isticaano la weydiisan karo ilaahay baa uu tacaawano ala albirri wa taqwa samafalka iyo isu kaashada la kacabsiga isticaanadaas maxay noqonaysaa isticaanada laba qaybood isticaanatu tafwiid wa isticaanatu musharaka isticaanatu tafwiid macnaheedu waxa weeyaan wax aan cid kale qaban karin oo ilaahay uu qaban karo kaliya subhanahu wa ta'ala oo aan adoomuhu ku qaban karin taa ilaahay kaligii baa la weydiistaa isticaanatu التفويض نوال إلى إلهي بكلي لو بندقيا وأوحى أطومها كلا لقلا قوستي قبن كرواية يا كوبد بادين كرا يا دالكسين كرا يا كشمين كرا يا دنب قدافي كرا انت هذا إلهي سبحانه وتعالى عيد كلام ماله
marka isticaanada waxa la yiraahdaa isticaanatu tafwiid isticaanatu musharaka baa jirto waa waxa ay adoomaha kale ku qaban karaan xogaa lacag bay ku siin karaan dacada marka ay saysaan bay ka dhicin karaan waxyaabo badan oo adoomuhu ay ka caawin karaan baa jira marka taana musharaka la yiraahdo marka ta la ogol yahay sharcigu ogol yahay waa taa musharakada ee cid kale ku qaban karto taan cid kale ku qaban karaynina waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ta keligii uu leeyahay sidaa darteed maalan adoon dhintay oo kale waxba kuuma qaban karo oo dee shaqadiiba way ka dhammaatay isagii baa cadilana duca u baahan marka inaad barido maaha adoon maqan oo aan kulaba joogin waxaanu kuu qaban karay inaad weydiisato maaha laakiin adoomaha ku hor jooga kula jooga wixii ay kuu qaban karaan isticaano waad weydiisan kartaa waa ka ilaahay uu tacaawan goorma adoomaha laftigoodu waxa ay kuu qaban karaan goorma la weydiisan karaa waxa la weydiisan karayaa cinda alxaaja marka aad had iyo jeer baahato markaad baahataaba sharcigu kuu fasaxaya cid kale inaad codsi u qorato oo aad wax weydiisato haddii kale iska dah bukaan badan baryo badan baahi badan waa la isku nacaa soomaha yay ku nicin oo lagu nicine ilaahayna wuxuu kugu jeclaadaa inaad codsi u gudbiso aad isaga wax weydiisato addoomuhuna waxay kugu nacaan inaad iyaga wax weydiisato wallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa banuu aadama xiina yus'alu yaqdabu ilaahay wuu kuu cadhoodaa haddaad waxba weydiisan weydo oo ducaysan weydo oo baryi weydo addoomuhuna way kuu cadhoodaan haddaad wax weydiisato bal raxmaanka iyo khalqiga ilaahay iyo khalqiga farqiga u dhaxeeya say u kala duwayne waxa kale culimadu ay leeyihiin waxaad cid wax weydiisan kartaa cinda suruuri bihi markuu qofku ku faraxsan yahay waxaaladaha qaarkood buu qofku danaynayaa inaad wax ama cilmi weydiisato ama cuud iyo xoolo weydiisato oo isaga taasi ay ka farxinaysaa uu jecel yahay taasoo kalena waa la weydiisan karaa dhib kuma jiro lifaaqaana culimadu had iyo jeer waa sii fasireen ihdina siraat almustaqiim waxyaabaha in ilaahay isticaano ka weydiisanaya isticaanadii waa socota ilaahay uu jidka toosan nagu hanuuni yaa kugu hanuunin kara jidka toosan ilaahay mooyaane ilaahay baa ayaa kugu hanuuninaya marka isticaanadii bay daba taallaayo ilaahay uu jidka toosan nagu hanuuni waxyaabahanu gargaarkaa isticaanada kaaga doonaynay gargaar ayuu ka mid tahay inaad hanuunna siiso hanuunkana ilaahay baa bixiya subxaana wa tacaala intaynaan halkaa hore soo dhaafin aayaddaa hore culimadu waxay leeyihiin iminka nacbudu wanastaciin way kala horeeyaan nacbudu baa horeysa nastaciinuna way dambaysa waana ka xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku soo marayna xadiidulqudsigii in intaa horena ilaahay uhi aniga ale inta dambena addoonka ale nacbudu waa cibaadadii ilaahay baa leh intan dambena nastaciinuna addoonkii baa leh oo ilahay wax weydiisanaya marka waxaa laga sirta laga fahmaya latiifada ku jirta waxa weeye markaad ilaahay wax ka doonayso wixiisa sii ilaahay waxbaynu ka doonaynaa soo maaha waynu baryaynaa horta amarkiisa qaado cibaadu ayuu kaa doonayaa aduguba aad wax ku helaysood u baahan tahay horta cibaadadiisa la kaalay oo amarkiisa qaado markaasaad codsigaaga soo qadimiyo aadaabtu waxa weeye wixii aad doonaysa markaasaad heli bal ka soo qaad tusaale nin baa madaxa adiguna shaqaalihiisaad ka mid taha markaa wuxuu ihi qofka caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa sameeya hawlahaa qabta waxaan ugu abaalgudi doonaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa dadkii kale way qabteen mid baa isagoo halkiisii iska fadhiyayoo ninkii madaxdaabuu kusoo noqdo wuxuu leeyahy anigu wixii aad ii dirtay maan qabanin laakiin waxaasaan kaa doonaya shardi baaba ku xidhnaaba waxaa codsigaa markaad arrimaha markaad fuliso amarada ah ayaad codsigaaga heli doontaa dee ninka madaxdii wuxuu odhanayaa oo wixii aan kuu dirayba maad qabanine maya ma qabanaya ii dhib waxaasaan kaa doonayaa wuxuu istaahilaa markaa in la xidho iyo in la garaaco iyo in la fogeeyaba walilaahi almathalu laclaa tilmaantii khalqiga haddaad saa u fahamtay ilaahay khaaliq ahaa ku abuuray maxaad u malaysa alla wuxu uhi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun si aan ducadooda u aqbala dadka iyo codsiyadooda isticaanadooda iyo gargaarkooda iyo waxay iga doonayaan oo dhan si aan uga yeelo horta aniga hay aqbaleen hana i rumeeyeen inta i rumeeyaan horta hay aqbaleen in ilaahay diiday muxuu wax kaga doonaya subxaanahu wa tacaala waxa labaadoo nacbudu iyo nastaciinu jamac bay u taagan yihiin ereyadu
iyaaka acbudu iyaaka astaciinu ma aha laakiin waa jamac marka halkaana waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimadu sida shareecadduba inoo dejisay in cibaadadu ay ku fiican tahay jamaca iyo wada jirka salaadii baa jamaca oo ku fadli badatay 720 darajo xajkii baan jamac la-aantiiba ansaxaynin jihaadkii baa jamaca iskaashigii wixii khayra ayaa watacaawanuu cala albiri wataqwa baa la leeyahay waxaa kale oo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar iyo wixii wanaagsan tacaawun iyo iskaashi marka mar walba wixii cibaado ah iyo khayr ah inay iskaashiga ku fiican yihiin kale socodkuna aanu fiicnayn oo shaydaankuba kaa eri karo xataa cilmiga barashadiisa iminka haddaad halkaa u baxdo oo aad tidhaahda anigu lifekan ka dhagaysanaya xaafadayda iyo haddaad xalqadan soo fadhiisata ma isku baraka maaha lifeka kol islaantii baa mar koob shaaha ku keenaysa marna ilmihii yaraabaa ku jiiraya marna kii meheraddaa ku odhanaya ii saxeex dee ictikaafkana ma helaysa baasha nafyina waa daciifa marka cid la cibaadaysanaysa tartan iyo suxulduub bay ku jirtaan iyo cid ay eeganayso oo wuxuu arkayaa dadkii oo ka dheereeyey laakiin marka keligii uu noqdo shaydaanku maalinba in yar buu durkinaya ilaa uu wixii hayayba ka laababa nacbudu wanastaciin asraarta ku jirta ayaa ay ka mid tahay asiraad almustaqiim siraad wuxuu noqdaa bay leeyihin culimadu mid toosa iyo mid qalooc ku yaro jira labadaba laakiin arrintaa waxaa ka saaray almustaqiim marka jidka ilaahay loo maraa waa mid toosan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سورة الأنعام إلهي وحول جدك سواء جدك يجي توصناه صامرة وإسلام لماذا مركز الإسلام كصفي عنه الرعضة واتسعنيسا إلى أد إلهي سور تاكتو سوى كارها لي قيامة إلى أد جنة الباب كذا كقش هدي أنو جدك سكي إلهي هنا مستقيم ما هو قلع مركلا جدك لسيف تيبي جدك مستقيم كهذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تذكر مركا لاقى حق النعمة دي الآن تيدا وصدح قيبات قال نعمة إلهي كو قبو السدي أو برواقيي أو وادتك إلهي الرمية كأمر قاتل الله ينقره كواسوا قال الله بعدنا وحوي قار أنبضا يوكر عين نعمة دي وايبا ولا الضالين إيا قار اسكدا انت نعمة هلانا الله بعض وضيبا المغضوب عليهم saddexdaa qaybood bay dadkii adduunyada ku noolaaba u qaybsan yihiin gaaladiina labadaasay usii qaybsan yihiin kuwa kufriga ku hallaabay iyo kuwo kale oo looba cadhooday muslimkuna waa dadkaa loo nicmeeyey qur-aanku isagaa isfasiraya sidii horeba aynu usoo sheegnay dadkan ilaahay u nicmeeyey ee aynu codsanayna in jidkooda ilaahayna mariya waa kuwe suuradeebaa ilaahay uu ku tilmaamay suuratu annisaa ayaa ilaahay uu ku caddeeyey subxaana wa tacaala waman yudic illaaha waarasuul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عد إلهي رسولك أضيع ذلك كالتلقادت جدك إن نعمة إلهي الشوحة كاحقون إن إلهي أضيع وأنبياء نبيدي وإذا قال هذا كل شهيدي تذكي صالحين تاها وناق بدنا كويرهم تبضنا إلا للرفيق للراعة لو هلينا كواس أونا يكسبوا لهاي وهم ليه سبحانه وتعالى الصراط المستقيم مركاو حكم ذي وحيابه إلهي وأضامها أقول نعمة يا بين يا معلم بدأ إلهي أي نبري إنه هنونيه الصراط المستقيم ولماذا وحي لين لبع الرباط بعيدا دنبي إلهي كبر رتشيو كو ديري كرا العناد والجهل عناد يا جهل عنادك ووحكيني كرا qofkii xaqii garanaya ayaa iska diinaya waa sida kuwa maqduubi calayh waa yahuudi iyagoo xaqa garanaya ayaa iska barbarbareen kitaabkiina gacmahooda ku bedeleen marka dad badan baa waxa dhacda iyagoo xaqa garanaya anaa daraadi inay u barbarbaraan waa wadaad xume ama ka loox tuurka ama uu kitaab tuuray la yiraahdo uu garanaya xaqi laakiin uu jirsiinaya siraadul mustaqiim marka wuxuu ku seegay أنا درادي على الله متستمرك المغضوب عليه قايبنا جهل باهية ولا الضالين وشيت كنت أسوي حويداري وأنبضي وعندنا هين باب الدين كرجنا يا الله سدايل هاي سورة الحديد آخر كذا وكت المامي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
suufinima iska dhambasheeno nimankii diinta kristanka haystay iyo wadaadadoodii waxaan diin ahayn bay diin ka dhigteen iyo bidca marka dariiqa wanaagsan jahligaasina wuu ku weydaarin karaa labadaba markaa waxaa laga baxayaa diintoo la barto lana dhaqan geliyo aayadda waxaa ka muuqanaya labada qolo waxa sii xumaan badan jidkan toosan kuwa u seegay canaa daraadii sidaa daraaddeed buu ilaahay soo horraysiiyey almaqduubi calayhim si kale haddaad ugu fiirsato almaqduubi calayhim waa ismi mafcuul addaaliina waa ismi faacil waa cilmigii naxwada ma jecli had iyo jeer naxwada inaan aada ugu dheeraano oo aynu u dhex gallo dee dadka caadigaabaa ka dhacaya oo waa arrin dalabada iyo dadka aqoon-yahanka ah ayuunbaa kula fahmi kara markaa intaad naxwada ka sheekaynayso waxaa laga yaabaa dadka caadiga inaanay kula qabsan saa daraaddeed macna ahaan unaynu ku keenno mooyaane inaynu faahfaahinteeda badinno waynu ka soo yaro gaabsan insha allahu tacaala almaqduubi calayhim waa macno sheegaya waa loo cadhooday kuwanna way hallaabeen waa faacil iyo mafcuul farqiga udhexeeya waxa weeyaan bay leeyihin culimadu ismigaa mafcuul waxa uu sheegayaa waa loo cadhooday ilaahay baa u cadhooday waxa kaloo u cadhooday cid kastoo ilaahay ka amar qaadanaysa oo addoomihiisa oo mu'miniinta oo awliyada ah ilaahay baa yuhuudi iyo gaal nacdalay innaguna waynu wada nacdalayna wixii ilaahay ka amar qaatoo dhan sidaa daraaddeed baa ayaa wasfigaa ismiga mafcuuli u yimi ciddii ilaahay ka amar qaadanaysa subxaana wa tacaala ilaahay baa nacdalay iyo ciddii ka amar qaadanaysaba marka labada wasfi macnahaasay sheegayaan marka cadhadii ilaahayna way ku dhacday oo ilaahay baa nacdalay waxaana sii nacdalay ciddii ilaahay aqbashay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay yidhi iyaguna odhanaya marka suurat lfaatixa fadligeedu aada iyo aad u badan yahay waxyaabahaasoo dhan bay inoo sheegaysaa adaabta kale aynu ka arkaynaa waxa weeye siraad aladiina ancamta calayhim waxallo wixii khayra iyo wixii fadliya ilaahay baa la siiyaa oo loo nicmeeyaa waalfadlu ilayh wixii khayr oo dhan ilaahay baa loo nisbeeya ancamta wixii sharana dadkaa loo nisbeeya washaru laysa ilayk adaabta fiican weeye saa daraaddeed baa isnaadkaas saa u noqday aad bay u habboontay waana waajib xarakada qur-aanka in la ilaaliyo waxaa laga yaabaa xarako qura oo uu qofku bedelo xaraf iska daayo inay macnaha oo dhan bedesho sidaa daraaddeed bay waajib tahay qofka qur-aanka baranaya inuu mucallin yeesho carabkiisa loo saxo ka soo qaad haddaad tidhaahda ancamtu calayhim maxay noqonaysaa anaa u nicmeeyo dadka weeye adigaaba is-ilaah gareeyey ilaah baad iska dhigtay markaasoo ancamtu calayhim anigaa u nicmeeye weeye ka waran haddaad ta'da kasriso ama aada hoos dhigto ancamti calayhim markaana tu dhadig baabaad la hadlaysaaba ilaahay baabaad dhadigaysay subxaana wa tacaala waa laba ayaan darro waaweyn idan markaa waan iska akhriyaya un qur-aanka sax maaha laakiin qur-aanka kariimka ah waa in mucallim loo yeeshaayo la faa'iidaystaa aada iyo aad looga bartaa mucallimiinta waxaa kaloo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka uu had iyo jeer dhammeeyo suuraddan waxaa odhan jiray maxay aamiin buu odhan jiray axaadiidta saxiixa bay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim sida loo odhanayaana waxa weeye qaybta hore waa madulbedel qaybta dambena waa caaridu lisukuun aamiin waana la soo gaabin karaa aamiin laakiin tan aynu inagu akrino maxaynu inagu akrinaa aamiin way maarata ku laxaadsanayaan taasi macnihiiba meesha uu ka baxaya walaa aamiina albayt alxaraam waa qasad bay markaa noqonaysa alqasd macnuhuna qasad imika maaha halkana waa istajib ilaahay una aqbal baa markaad aamiin leedahay waa ilaahu noo aqbal ducada haddaad miimka shidana qasad bay noqonaysa wax akhriyeyna ma jirada quraa'ada qaarkood sida warash oo kale ayaa had iyo jeer wuxuu akhriyaa madulbedelka ayuu dheereeyaa dee markuu dheeraynayana miimka ma shidayo aamiin weeye markaa haddii dariiqa qiraa'atu warash la akhriyayo aladiina aamanuu marka waa dheerayn aan shid lahayn qofkii doonaya taa inu akhriya dadku taa ugama jeedaan marka wuxuunaan uga jeedaa uun aamiin in la soxo imika markuu imaamku akriyay waladaliin markuu idhaahdo maxaynu odhanaynaa miimkii baa lagu taagaya shid sida saxda ah waxa weeye in la idhaahdo aamiin qaybta dambe la jiido waktiga la odhanayo marka salaada
imaamku kolkuu yidhaahdo wala daaliin ee uu dhammeeyo ayaa la odhanayaa aamiin man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min denbi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaas saasuu ku sheegay qofka aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta dembigii hore o dhan baa laga dhaafa aamiinta malaa'igta iyo aamiinta imaamkuna way iswaafaqsan yihin marka aamiinta imaamku kolkuu bilaabo ayay malaa'igtuna bilaabaysa adiguna markaa bilow haddii laakiin imaamka aamiintiisiyo aan la gaadhin adigu aada horay uga sii bilowdo waad qadimanta horead usoo fadhiisato aamiintaadu tii malaa'igta way seegaysa marka goormaynu inagu aamiin idhaahna waxay dadku odhanayaan wala daaliinta intaanu dhammaynba idaa qaala alimaamu wala daaliin markuu idhaahdo faquuluu fa'du waa tartiib maca tacqiib markaa kadib idinku waxaad tidhahdaan aamiin dhaha marka ha la sugo wala daaliin markuu dhammeeyo aamiin bilaabo la bilow arrintaasna waa arrin aada u muhiima wixiinoo dhan waa wada deg aamiintii baa aamiintii ka horeysaa assalaamu calaykum tiina intaanu tii dambe odhanin waynu kacnay marka had iyo jeer masbuuqaa tahay salaada imaamku tiisa uu dhammeeyo adiga wax kuu hadhayin goormaynu kacnaa markaana waxaa la kacaa had iyo jeer marka tii hore inuu yidhaahda tii dambe aanu gaadhin maxayna wada qadimay marka waxay u baahan tahay si ujuurtan iyo abaalmarintan loo helo in cibaadada waktigeeda lagu beego intaasuu inoogu joogi doonaa dariskani wahada ma aquluhu waastaqfiru اllah wallahu subxaanaه wa tacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان